hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa 48 saac la soo dhaafay sameeyay hoos u dhici siyaasadeed ee ugu weynaa tan iyo markii uu xilka ku qaatay hab muran ku jiro bishii Febraayo ee sanadkan. shucaaca siyaasadeed ee qorqor iyo tuunka laga qabo ayaa xooganaa tan iyo markii shaqada laga eriyay ra'iisul wasaare Khayre markaas oo galmudug lagu eedeeyay inay kaalin ka qaadatay majaxaabintii xukuumadda. isbeddelkii xukuumadda federaalka waxa uu kaloo dhalay isbeddelkii qorqor ayay leeyihiin dadka arrintan dhexda uga jira. tan iyo markii uu dhawaan Muqdisho yimid qorqor ma ahayn midkii sida wacan u daadiyay labadii shir ee hore. kulamadii uu la qaatay madaxweyne Farmaajo, taliyaha Niisa Fahad Yaasiin Xaaji Daayir iyo safiirka Qatar ayaa dhinac u buurtay qorqor oo caadiyan lagu tilmaamay inuu yahay siyaasi ku go'aan qaata xaaladaha taagan balse aan doorasin marxaladaha soo socda. ololihii galmudug u gashay kursiga ra'iisul wasaaraha ayaa dhinaca kale iftiimiyay inuu shirka dhuusamareeb tiri noqon karo mid uu ku gacan sareeyo madaxweyne Farmaajo, taasoo xilli hore shaki gelisay madaxda Jubbaland iyo Puntland. sidii aan hore idinkugu sheegnay madaxweyne Farmaajo wuxuu dib ugu dhigtay magacaabista wasiirka koowaad inuu ku galo gorgortan siyaasadeed. saansaantii ayaana asbuucan ka soo ifbaxday dhuusamareeb. qorqor oo isagoo Turkiga jooga ka war helay in aanay Dani iyo Axmed Madoobe imaan doonin shirka dhuusamareeb tiri ayaa ku adkaystay inuu shirku qabsoomo. xalay wuxuu ku dhawaaqay inuu furmay shir aan loo dhammayn oo ay ka maqan yihiin labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland. waxaa jira warar sheegaya in filla Soomaaliya ay ku qasabtay galmudug inay sidaas samayso. arrinta ugu weyn ee la karkarinayo waa muddo kororsi aamusan. inta badan bulshada Soomaalida lama filaan ayay ku noqotay tallaabadii uu xal qaaday hogaamiyaha galmudug. arrintan waxaa la sheegay inay si weyn ugu hor yimaadeen inta badan kaadiriinta siyaasadeed ee galmudug, kuwaasoo la sheegay inay fariimo toos ah gaarsiiyeen qorqor. waxay aaminsan yihiin inay tahay qorshe la doonayo in madaxweyne Farmaajo muddo kororsi ku qaato. sida ay adduunka TV u sheegeen dad xoogaal ah, qorqor ayaa la wadaagay inuu arrintan ka baaqsado laakiin ma uusan aqbalin. xubno ka tirsan golaha wasiirada ee galmudug oo markii hore ka yimid dhinaca mucaaradka ayaa la soo wariyay inay ka gadoodsan yihiin siday wax ku socdaan, iyagoo ka fakaraya inay tallaabo qaadaan. talooyinka kale ee loo jeediyay madaxweyne qorqor waxaa ka mid ah inuu shirka hakiyo oo uu doono madaxda Puntland iyo Jubbaland, taasoo aan weli dhicin. dadka qaar waxay sheegayaan in wasiirada dhanka mucaaradka ka soo galay galmudug inay ka fakarayaan inay xukuumadda ka baxaan haddii uu qorqor ku adkaysto inay sidan wax ku sii socdaan. sida ka muuqata tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee la qaaday, galmudug waxay lumisay kaalintii dhexdhexaadnimada. filla Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay mar kale galmudug ku cadaadinayso inuu shirku degdeg ku soo gabagaboobo oo warmurtiyeedkana la faafiyo. madaxda isugu tagta dhuusamareeb waxaa ugu mowqif adkaaday hogaamiyaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo dhowr jeer ku baaqay in la raadiyo ragga maqan, laakiin sidaan xogta ku helnay ugu dambeyn isagana waa la burtay. ballanqaad dhaqaale oo la sheegay inay dowladda Qatar samaysay ayaa sidoo kale la soo tabiyay inuu mowjadaha shirka bedelay. saddexda maamul goboleed ee ku sugan dhuusamareeb iyo gobolka Banaadir ayaa la sheegay in lagu qanciyay in aanay ka hor imaanin haddii muddo kororsi 2 sano ah uu baarlamaanku u sameeyo madaxweyne Farmaajo. hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye hadda waxa uu ku sugan yahay xaalad siyaasadeed oo murugsan, taasoo hadba dhinacii loo rogo ay halisteeda leedahay. sida uu filla Soomaaliya isugu aamini karo waa su'aal adag. inuu la dagaalahina hadda uma fududa. inuu Soomaalida kala lumiyahina waxay u tahay mustaqbal xumo siyaasadeed. inuu shirku burburana waa u nabar. in ra'iisul wasaaraha la siiyo qofka uu rabana waa u dooq. sida uu arrimahaas isdiidan u maareeyo ayaa sharaxaad u noqon doona meesha uu qorqor la aadi doono galmudug sanadaha soo socda. dhinaca kale, isla wararka dhuusamareeb waxay sheegayaan inuu madaxweyne Farmaajo aqbali karo in la aado doorasho dadban oo deegaanadu badan yihiin, sidoo kalena ergada la gaarsiinayo ku dhawaad 500 oo qof. madaxweynuhu wuxuu dhawaan sheegay inuu go'aan walba uu ku soo gaaro dhuusamareeb ku celin doono baarlamaanka, taas oo hoos u dhigtay rajadii laga qabay shirka dhuusamareeb 3. haddii ay dhacdo inuu madaxweyne Farmaajo aqbalo arrintan, waxay dadka qaar qabaan inuu ku wada jiro shirqool siyaasadeed, kaasoo ah inuu madaxweynuhu ka cararayo inuu shirku u burburo mowqifkiisa, balse uu rabo inuu baarlamaanku buriyo wax kasta oo ka soo baxa dhuusamareeb 3, taasoo sida la sheegay ay filla Soomaaliya u aragto badbaado laba aflaah. midda koowaad waa inuusan shir ku eedsan madaxweyne Farmaajo, midda labaadna waa inay heli karaan muddo kororsi 2 sano ah.
galmudug iyadoo u jeed in wax walba oo ka soo baxa shirka dhuusamareeb lagu celin doono xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo hore u sheegay inaanay aqbali doonin doorasho dadban ayaa haddana si indhala'aana waxay weli ugu jiibinaysaa filla Soomaaliya. beesha caalamka ayaa weli ku adkaysanaysa inay wax uun ka soo baxaan shirka dhuusamareeb. waxaase la isku raacsan yahay in wax walba oo ka soo baxa shirka qabyada ah ee dhuusamareeb 3 inaanay u xooganaan doonin sidii shirarkii hore.